maayarka caasimadda gobolka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley ayaa maanta xafiiska maayarka ku qaabilay wafdi ka socda dalka Finland oo ay ka mid yihiin xildhibaan Thomas iyo xildhibaan Faysal oo xildhibaano ka ah degmooyin ka mid ah dalka Finland iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee dalka Finland duqa caasimadda gobolka Gabiley ayaa ka warbixiyay ujeedada ay wafdigaas u yimaadeen ku faraxsanahay inay soo booqataan waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaa runtii aragtida fiican ee doonaysa in gobolkan xiriir wada shaqeyneed la yeelataan isla markaana aad xog ka heshaan baahiyaha gobolka dhinacyada beeraha waxbarashada iyo caafimaadka waxaad ku soo dhaweynaa gacmo furan runtii waxaan ka wada hadli doonaa xiriir wada shaqeyneed maadaama ay ka socdaan goliyaal deegaan oo nala mid ah xiriir wada shaqeyneed oo labada degmay matelayaan aanu ka wada yeelan doono sidoo kale waxaanu xog ka siin doonaa waxbarashada iyo caafimaadka iyo beeraha oo meelaha aan rajeynayno inay wax nagala qabtaan insha Allah waxay booqasho ku tagi doonaan jaamacadda Timacada University iyo isbitaalka guud ee magaalada Gabiley waxaan soo tusi doonaa qaybo ka mid ah beeraha runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaa waxaan leenahay idinkana waan idinku soo dhaweynaa inaad naga faa'iideysataan wixii khibrad iyo waaya aragnimo anaguna waxaan rajaynaynaa inaan idinka faa'iidi doono wixii sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay xildhibaanada ka yimid dalka Finland sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan nimaadno aan khibrad ku soo kordhino wax isweydaarsanno waxaan rajaynayaa xiriirka halkaa ka bilaabma ee Gabiley iyo Fanta iyo Sibow bilaabma inuu noqon doono mid socda midho dhala mustaqbalka khibrada la isweydaarsado la wada shaqeeyo wixii fikir xildhibaanadu hayaan ay golaha deegaanka ku kordhiyaan golaha deegaanka Gabiley wixii ay afkaar iyo khibrad hayaan ay ku kordhin doonaan waxaan rajaynayaa inay halkaa ka soo bixi doonto mataaniin dhex marta degmooyinka Finland iyo degmada Gabiley arki doonaa shaqada gobolkan ka qabateen hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka iyo hadday tahay beerahaba golaha deegaankuna waxa weeyaan indhihii gobolkan marka wixii hore soo qabateen aad baan ka mahad celinaynaa also reaching out to the rest of the world in terms of connections and friendship and from this perspective I'm very happy to be here too to discuss. gabagabadii waxa ay kormeer ku soo mareen xarunta jaamacadda Timacada oo ay kula kulmeen mas'uuliyiinta jaamacadda Timacada ee gobolka Gabiley Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV gobolka Gabiley